بلنسناهي برنامج مناسبة عن مقعدرني Golaha Badbaadada koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Golahaas oo muddo ka shaqeynayay degmooyin iyo gobollo qaar ka mid ah Soomaaliya iyo dalka dibadiisa. Marka maanta munaasabadan waxay si qaas ugu tahay golaha qaybtan la leeyahay xafiiska gobolka shabeelada hoose. وحمانت انت نوفدينا وقضياشة دقنك بيلاها او دقل دلنيرادة بيلاها او دقل iyo ururka haweenka beelaha oo digay intaas munaasabada sida gaarka loogu casuumayna macnaheeduna ay tahay oo inuu sheegi doono dad badan oo in badan barnaamijkan wax ka ogaa waxaan ku horeyn doonaa hadalka ama aayadaha quraanka kariimka maxamed xaaji sheekh aadan oo loo yaqaan xaaji falyatafadal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. رأينا حسوسية مناسبة مانتا وقالها بدبادة كونفور قلبيت سوماليا قارهان خيبتي استشبه هوسه وحانا كحجين يا مناسبة maanta loo balansayo على مسارka magacaabista على مسارka waxaan inoogu qoran walaalkeena qaaliga ah ee aad ku dadaalka badan intaan u gudagalin asiga munaasabada ayaan gudagalaynaa waxaana inoo furi doono xogayaha guud ee joogtada ah ee golaha badbaadada koonfur galbeed iskuna xira koonfur galbeed guud ahaan waan al-ustaad xuseen cumar xuseen caliyow ibro waxaad ka dareemi kartaa inuu nin siyaasi ah yahay kana soo jeedo bahda koonfur galbeed gaar ahaan awdigil dadka ugu firfircoonna ka soo jeedo waxaan leeyahay soo dhawow mudan gadoomiye si aad noogu furfurto munaasabada xalfadda maanta aynu fadhino. السلام عليكم وكلها ما تقدر وجواي حلفتها ما تحاول قبلي دور شغلي كارهان كلام جاي وكل بس ومالي يرد يروح يتاعي إن باهدين كهذا تنتين كهذا ومدين أمره كابينا إلى مفتوح السماء برنامج كان مكان كهذا نوبي أنك تعاون waxyaabo badan tusaale golaha badbaadinta ee koonfur galbeed Soomaaliya waxay dhisan tahay muddo 3 sano sanadka afraad u socdo wax badan waa ka shaqeynay saamamadkeena dadkeena ehelkeena qaraawadeena oo badbaadin lahayn haddana waa wadnaa maanta maasha Allah odayaashii dhaqanka dhinacna fadhiyo la yaraa fadhiyo ururada haweenka nala fadhiyo maanta maalin iga farxad badan tahay ma jirta mamaleyna waayo goosadayaasheeda dhaqanka dhinaciga fadhiyo walaalaheyga fadhiyo walaalaheyga haweenka fadhiyo maasha Allah waa xalfadda ugu habbooneed maslena aan qabano waa midda ugu sharafka badneed marka hadalkeena idinku badin insha Allah kula shaqeyn waa شكرا وراكسي ولدنا وأهل الجوجنا أنا معها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أدي وما سيهاي سيدا مناسبة قيمها بدن أن أذكري ومركلا دائما حسوسيو حسين عمر حسين عليو إبرو والجماياشة ولها المتدير
muddo 3 sano ku dhow ku jiray kana shaqaynayay sida loo horumarin lahaa beelaha awdigil aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa 1,000 jeer iyo in ka badanba munaasabada aan fadhino maanta waa munaasabada furida iyo caleemasaarka golaha dadkii noo matali lahaa gobolka shabeelada hoose waana arki doonaa magacaabistooda gordhow ayay nagu soo socotaa waxaan inoo soo jeedin doono ama halkan ku magacaabi doono afhayeenka guud golaha midnimada golaha badbaadada koonfur galbeed waa ustaad cabdiqani waxaan ka codsanaa haddoo joogo inuu masraxa soo fuulo si oo u magacaabo golaha matali lahaa 7 awdigil الحمد لله إله مع السلام إذا هو الرسول هو عفمات أبناء وهل هذا أما هل الموقف أنه وضله وربنا أن تدول المدى الكيمي يوجد كيمي وأنا إسفان سنين وإن بدن وعلى غضيه لما تقول حجيري وهذا وضن كلي أوغن سنة كسول جيدنا وحاربنا إن أن نقوم ضد ميريسان وديار إن دالكودي horumarkooda ay ka shaqeeyaan oo wax allaala ayaga ay hadafkooda u yahay ka horumariyaan waddankoodii iyo dadkoodii inay horumarkooda ka shaqeeyaan waxaan rabaa maanta xaflad oo caleemasaar ah oo ama loo magacaabayo oo wakiila lower shabeelle waxaan rabaa inaan magacyadoodii aan ku dhawaaqo idinkan aada soo dhaweysaan golahaasna waxaan rabaa wixii loo igmaday ay tahay xibinimada oo inay wakiil ka noqdaan oo ummaddan ay hogaamiyaan waxaa rabnaa ayagana dhibaata ay la kulmi doonaan wax allaala waxay la kulmaa inay u dulqaataan waddankoodii dadkoodii inay horumarkooda ka shaqeeyaan wakiilka koowaad cabdisalaan ibraahim maxamed waa wakiilka gobolka shabeelle hoose ama lower shabeelle u fadhiya wakiil ku-xigeenkii labaad lower shabeelle u fadhiya ibraahim cali caliyow asna waa soo dhaweynaynaa wakiil xogeyaha lower shabeelle u fadhiya ibraahim aadan gorow waa xogeyaha gobolka lower shabeelle allah kula garabgala cabdulaahi waa wakiilka warfaafinta iyo isku xirka dhalinyarada cabdulaahi maxamed cabdi sidoo kale asna waa soo dhaweynaynaa maxamed aadam shiil waa xaqeyaha maxamed aadam shiil waa xogeyaha bulshada arrimaha bulshada okay sakariya cali cabdulaahi waa xogeyaha sakariya cali cabdulaahi waa xogeyaha horumarinta iyo arrimaha qoyska sidoo kale asna waa soo dhaweyneynaa nin la yihahdo cabdisalaan asna waa xiriirka jaaliyadaha gobolka lower shabeelle intaas ayaa la magacaabay waxaan rabnaa in ayagan aan u duceyno oo ayagana shaqadii loo igmaday ilaahay ula garabgalo marka waa soo dhaweyneynaa bismi illah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ugu mahadsan yahay walaalkeen cabdiqani sheekh haddii wax yar aan idin xusuusiyo cabdiqani wuxuu ka mid ahaa dadkii sida dheer oo arrimahan ugu shaqaynayay dhaqaalo badan ku bixiyey hoteelo badanna dadku ku balamiyey dhaqaalihii halkaas ku baxaya waa ninka aadkii aad u badan ku bixin jiray liajli oo xun u bixin jiray si oo u horumariyo dadkiisa oo raba inuu ku mideeyo afkaarta midnimada inuu ku mideeyo aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa waana u ducaynaynaa si iyo reerkiisaba in amtaalkiisa oo kale inuu ilaahay noo badiyo oo si gobolka u horumaro intaas waxaan ku xijinaynaa munaasabadda maanta aan u fadhino oo ah golaha badbaadinta koonfur galbeed gaar ahaan maxaan ka naqaanaa taariikhdiisa maxaan ka ognahay waxaa inoo soo jeedin doona si faahfaahsanna noogu dhigi doona
gobolka inta qof oo ka kooban yahay marxaladaha soo maray gaar ahaan haddana koonfur galbeed gobolka gaar barnaamijka maanta aan u fadhino munaasabada golaha ka sheekay doono waxyaalaha oo qabto waa dictor waana daayar yahay wax badanna wuu ka soo shaqeeyey intaas waxaa ku sii darayaa hambalyo oo ah muddada oo howshaan waday usbuucyadii lasoo dhaafay shaqooyinkii oo lahaa oo ummad u qabanayo wuxuu u joojiyey tan sida gaarka ah ee golaha gaar ahaan todobada awdegel sida isugu keeni lahaa waqti badan ku bixiyey muddada gaaban oo shaqooyinka joojiyeyna waxaan ilaahay u baryaynaa in bedel khayr qabo inuu ilaahay soo geliyo waa doctor maxamed cabdullaahi buule maxamed waa doctor caamir waxaan ka codsanaa inuu noo soo dhowaado si kelmadihiisa iyo golaha wuxuu yahay iyo shabeelada hoose xaaladahay soo martay inoogu sheekeeyo falyatafadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كثير طبعا آدم ندي سلام يا شرف تهاركم كسوغا أخوي هذا دليل هذا هويك وقاشة بيشة طبعا تدوينها نقل سوق يبقى مرتين نوعا وحن آدم وفرق سنة هاي ما أنت إنا وقتي نتاجنا هاي أنا وقتلي يا استخيرها Golaha Badbaadada koonfur galbeed dhanka aqoon-yahanada Southwest Somali Council Southwest Salvation Council ade Golaha Badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeelada hoose maanta waxaan ka taaganahay caleema saarka ama barnaamijka laanta fulinta ee gobolka shabeelada hoose taas oo macnaheedu uu noogu fadhiyo macno weyn oo noo gaar ah dhammaan deegaanka inta ka soo jeeda ama loo shabeelle intaan u gudagelin taariikhda Southwest Somali Southwest Golaha Badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya intaan gudaha u galin waxaa xusid mudan in mar walba la xuso deegaanka loo shabeelle taariikh ahaan iyo qiimaha uu ka leeyahay Soomaaliya dhanka gobolada markii loo eego intaa kadib gobolka shabeellada hoose waxaa ogtihiin inuu ka mid yahay gobolada ugu facaga weyn Soomaaliya markii laga reebo gobolka Banaadir sidoo kale waxaa ogtihiin populationka ugu badan ama dadka ku nool ee ugu badan deegaanka ama gobolka Soomaalida ugu badan waxaan dhihi karnaa waa gobolka shabeellada hoose sidoo kale wuxuu leeyahay baaxaddan 25,285 kilomitir square waa gobolka shabeellada hoose baaxadiisa ama baaxadda uu ku fadhiyo waxay la tahay 25,285 kilomitir square tirakoobkii la sameeyey 2007 1,399,868 qof ayaa ku noolaa markii la sameeyey 2007 ugu dambeyntii 2014 waxaa la sameeyey 1,923,470 qof in uu population ahaan uu ku noolyahay taasna micnaheedu waxay ka caddahay Soomaaliya total populationkeeda halka aan ka gaarsiisana waa 10% waa gobolka keliya aan dhihi karo heerka uu ka gaarsiisan yahay taariikh ahaan waxaad ogtihiin inuu soo maray heerar kala duwan waxaa ka mid ahaa dadkii ka soo jeeday halyaagii Soomaaliyeed ee ka soo jeeday ama ku soo halgamay SYL wax badan waa ogtihiin deegaan ahaan deegaanka uu ka soo jeeday marka intaan ka gudbo gobolka shabeellada hoose wuxuu ka mid yahay gobolada ugu manaaficda badan ama wax soo saarka badan Soomaaliya waa gobolka keliya ee Soomaalidu ay ku taanto in mar walba qof walba uu ka helo waxyaalaha uu u baahan yahay ama nolol maalmeedka caadiga ah gobolka shabeellada hoose wuxuu soo maray taariikh ahaan heerkii dowladda Soomaaliya markaan u laabano waa meesha keliya ee lagu tababari jiray aqoon-yahanada lagu soo saari jiray cilmi beeralayda ama dadka ku takhasusay sidoo kale dadka militariga ah ama howlaha shaqaalaha dowladda ku jira waxaa nasiino loo sameyn jiray markay howlgab noqdaan gobolka shabeellada hoose wuxuu ka mid noqday gobolka keliya lagu dejiyo ama dibidejin loogu sameeyo dadkii kasoo barakacay Ethiopia
waagii dagaalkii sabaysabani dhibaatadii ka dhacday intaa markaan ugu gudbo shabeellada hoose dhibaato badan uu ku jiraa waa dareysantihiin dadka ka bixin lahaana waa dad aqoon-yahana oo dhalinyaro ah waxaa ogtihiin dagaal inaan waxba lagu keeni karin laakiin caqli iyo maskax haddaan adeegsano waa hubaal inaan ku guuleysan karno arrimaha noocaasa intaa kadib haddaan usoo laabto soomaalidu waxay ku maamaqdaa haddaan eray yar aan dhexgeliyo taariikhda markii laga sheekeynayo soomaalidu waata la yidhaahdaa dadka dalahooda ayay bartaa taariikhda markii lagaaga sheekeeyo waxaa soo martay faa'iidada ahayd ujeedkaaga heerkaaga meeshuu gaarsiisan yahay maanta meesha aad taagan tahay waxaa moodaa in difference weyn uu u dhexeeyo marka sidaas darteeda waxaa micnaheeda u leeyahay wax badan taariikhda aan raadino cilmi waa leena aqoon-yahanaa horteeda fadhiyaa wax badanna aan u laabano taa waxay iga tahay taariikhdii koobnayd ayaan ka hadli lahaa gobolka shabeellada hoose inkastoo odayaashii adeerada ay iga dambeeyaan iyagana ay wax badan ay ka ogyihiin goobjoog ay u ahaayeen inta keliya ay idiin soo gudbinaya waa inta aan kusoo dhigtay buugta ama taariikhda ama aan ka maqlay waalidiinteeda soo hore noogu sheegay qorayaha guud ee golaha badbaadada koonfur galbeed master xuseen cumar xuseen waxaa la aasaasay golaha badbaadada koonfur galbeed sanadka markuu ahaa 2018 si wanaagsan uma dhaqangelin laakiin wuxuu toos u dhaqangalay 2015 oo caqabado badan kadib alxamdulilah maanta wuxuu jiraa 3 sano taqriiban sanadkii afraad ayaa u bilaaban raba gudoomiyaha guud ee golaha badbaadada koonfur galbeed waxa uu ku noolyahay dalka dibadiisa waxaana magaciisa la yidhahdaa cabdiqaadir sheekh daalib waa nin humanitariana waa nin aqoon u leh cilmiga iyo bani-aadanimada wax ka yaqaana waa nin wax badan kusoo taagnaa horumarka soomaaliya iyo qaabka uu ugu develop garay lahaa soomaaliya dadka baahiyaha haysta sidoo kale wuxuu wax badan ka shaqeeyay inuu golaha badbaadada koonfur galbeed uu cagihiisa ku istaago waana ugu hambalyeynaya fariin ayaana gaarsiinaynaa taasoo macnaheeduna uu yahay in maanta aan u taaganaha wuxuu asaga soo dhisay dhibada usoo istaagay inaan maanta anaga ku taameyn aan ku faraxsanaa si wanaagsan oo u hirgalay whatever you are be a good one macnaheeduna wax kale ma ahan wax waliba aad doontid ahaw laakiin noqo shaksi wanaagsan it means bulshada aad ku dhex nooshaa iyaga ayaa kaa turjumi kara waxa aad tahay oo keliya qof haddii aad aragtid in wax laga sheegaayo macnaheedu waxay tahay shaksiyadiisa ayaa wax badan ka dhiman marka intaa ka gudbo golaha badbaadada koonfur galbeed waxaa maanta aada ugu mahad celinayaa dhammaan inta kasoo qayb gashay mar labaad sidoo kale laanta fulinta ee la magacaabay wakiiladooda ilaa 7 wakiil ah waxaan idinkugu hambalyeynayaa dadaalkiina aad muddo badan samayseen aad kusoo gaarteen inaad hormuud u noqotaan golaha badbaadada koonfur galbeed laanta shabeellada hoose waxaan idiin leeyahay mahadsan idiin dhammaan inta maanta horteeda fadhida sida farxadda leh ugu soo qayb gashay waan idinkugu bogaadinaa waxaan idinka rajaynaa insha allah inaad wax badan ka bedeli doontaan horumarka iyo bani-aadanimada deegaanka iyo dhanka amniga intaba waa howl adag ayaa idiin sugaysa waxaan rajaynaa insha allah hawshiina inuu ilaahay idinla garab gari doono anigana waan idiin soo ducaynaynaa mar walbana waan idin garab taagannahay waxaan halkaas kusoo gabagabeynayaa hadalkiina gacmahooda jira ayay wax u gooyaan it means aan isqabsano gacmaheenana aan ka dhigna hal mida si micnaheeda aan u gaarno hal hadaf keliya aan leenaha oo ah how to develop the human being in lower shabeelle marka sidaas darteed aada umahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo diyaarintii oo soo diyaariyay taariikh nololeedka ama taariikhaha gudoomiyaha guud ee golaha badbaadada koonfur galbeed isla markaana ka sheekeeyey taariikhda gobolka shabeellada hoose iyo maraaxisha ay soo martay iyo dadkii ay martigelisay noocyo walba oo iskugu jiro aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waqtiga oo noo bixiyey iyo muddadii koobneed oo shaqadiisa uu hakiyey baan kaga mahad celinaynaa waxaa ku xiga codka aad maqli doontaan kadib baan u yeeri doonaa codkaas aad maqli doontaan wuxuu ku saabsan yahay munaasabad hadda kore ka dhacday hargeysa golaha cafwan digilii mirifle ay qabteen majaacadii ku dhacday ama gaajadii hargeysa qabatay somalilan qaybta ay ka qaateen digil abhayeenkiyaa noo joogo maanta bal codkiisa aan maqalno iyo sanad 2 sano ka hor iyo meesha wax kasoo qabtay
gaarka sidaayay u daayo walaalahood baan ma hadcinayna insha Allah ilaahay badan ha ka siiyo waxaan ka midnahay marka saas leenahay dadka loo dadaalayo ma lihin markii dadka dhibaatada ku dhacday ayaan ka midnahay saasaan isu aragnaa waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dowladda qaybta weyn ka qaadatay guddiga ay heer qaran u magacaabay isu xilqaantay duco waxay jirta maaragtay muslimiinta ku ducaystaan uu jireeyay dadka ilaahay naguma salido kuwa aan noo naxariisanaynin noogana kaabaqayno bilaahiman aan ugu naxariisanaynin waa laga ducaysaa haddii madaxda dadkeeda dhibaato ku dhaco ay u danqan weyso madaxa maaha mantaas laakiin madaxda u danqanta dadkeeda dhibaato ku dhacday u gurmata u istaagta waxaan leenahay khayr allah siiyo magaranaysaa allahna u barakay dadaalkooda iyo waxay qabteen sidoo kale insha allah waxaan halkan maanta aan u nimid waxay ka mid tahay waxaa ku kaa inaan dareenkeena muujino maca dalika dadkana ay ugu daydaano tusaale u noqono waa jiraan dad wax la baxbaxayay laakiin waxaan istusnay wixii hoos in laga bixi way fiican tahay laakiin armay ka fiican tahay in magaranaysa aan kor u niraadno waxa aan arkayna inaan muslimiinta aan u sheegno dadka walaalahan dadka aan ka soo jeedno dhibaatada halkan taalla si ay ula qaybsan anay ka wanaagsan tahay sidaasaan istusnay sidaasaan maanta aan idinkugu yeernay ajiibtaan noo soo ajiibteen aan soo dhawayseen waad ku mahadsan tihiin laanna hawshan waa hawsheen haddii aan soo dhawayn lahayn hataa anaga waa qaban lahayn hawshan waa u istaagi lahayn madu xataa aan tagna meesha ay ku dambayso go-aankan waa meesha dhibka kadib aan tagna waa tagi lahayn sidoo kale insha allah waxaan leenahay marka dadka soomaaliyeed ee meel kastay joogaan iyo muslimiintaba dhibaatada halkan taalla maanta caalamka waa hal qol waa isu jeedaa waxaan leenahay adduunka haddii wax laisu qaban lahaa maantay taagan tahay haddii la dhihi jiri soomaali way iscaawisa waxbay iskartaa maantay taagan tahay waayo maantay taagan tahay waxaan ka rabnaa inuu maanta kasii maantay taagan tahay oo ka bilaabo gobolka shabeellada hoose haddii oo bulshada somaliland oo wax u taray waxaan ka rabnaa sidoo kale si la mid ah gobolka shabeellada hoose inuu wax badan ka qaban doono waxaa xusid mudan barofesoraa nala joogo oo darajadooda heer master kor usii dhaaftay iyo odayaal dhaqan oo arrimo badan ka soo shaqeeyey aan ku horeeyo afhayeenka dhaqanka awdigil mudane sheekh yuusuf cabdubuule soo dhowow الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد marka insha Allah salaamati meel ka soo joogtaan walaalaha digil meel ka soo joogtaan waxaan leeyahay marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khaasatan dadkii ka soo qayb galay shirkan waqtigooda soo horay qaaliga ah iyo inta soo abaabushay juhdiga dadaalka badan ku bixisay iyo inta dalka dibadiisa joogtay dhaxda u xiratay waqtigooda bixiyay qaar ka mid ah magacyadooda laga xusay halkan gudoomiyaha uu ka mid yahay Ibrahim Shaqdaalib waxaan idin leeyahay dhamaantiin salaamati markale waxaan idin leenahay waan idin hambaleynaynaa ma haddaad garateen dantiini maslaxadiina aad garateen waxaan idin leenahay aad u mahadsantihiin horta waa ninka la sheegayo waa aniga wax badan baan horta soo ogeyn markaas intaan usoo noolayn digil xaaladiisa digil maanta waxaan u malaynayaa qof kastoo qaangaara wax fahmaya meesha uu marayo waxaan u malaynayaa inuusan u baahnayn in loogu sheekeeyo dhacdooyinka dhacaya maanta haddii la yiraahdo dib ha loogu laabto waad xanuunsanaysaa xanuuna kugu dhacay dadka qaar way xanuunsan yihiinba qaara u xanuunsaday xaqiiqda maslaxadeena iyo danteeni markaan garan weyne dad kale waxay naga raadsadeen maslaxadooda ayay naga raadsadeen waxaad ogaataan ummad kastoo isu tagtaan iska badaa xataa haddii ay deegaankooda joogaan xataa hadday qaxooti yihiin waxbay qabsan karaan barnaamijkan hadda aan sameynay hargeysaan joognay waad garan kartaan marsi aan ku ahayn maca daalika waxaan ka qaadanay qayb mugle oo dadka markii laga reebo Soomaaliland u dhashay markii laga reebo Soomaalida oo kale dhan cid sameysay ma jirto barnaamijka aan sameeyay maca daalika waana la ka badnaa waana la ka dhaqaale badnaa waxa la isku dhaafay waa fikir baa la isku dhaafay dhaqaalahaas markaan adooginaynay dadaal soo jeediyey gabar baa soo jeedisay gabar fikirka gabar buu ka soo bilowday gabar dibadda ka timid waxay tiri waxaan doonayaa inaan dhaqaale bixiyo oo ka warrama seed u aragtaa marka waxaan idhi waa fiican tahay dhaqaale haddaad bixinayso dee waxaan ku bixinaynaa dhaqaalaha intaan waa ka badan doonaa magacaan ku bixin doonaa binaadkani sidii aan yeelnay shirka waxaa kasoo qayb galay dhammaan dowladda inteeda ugu muhiimsanayd wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha diinta oo qaabta wasiirka gaashaandhiga iyo waxaa kasoo qayb galay marti kaloo fara badan marka waxay ahayd xilligii abaaraha dhibaatada meesha ka taagneed waxaan ka wadaa marka wixii aan aruurinay ninkii xamaaliga ahaa ninkii miiskoo taagnaa ninkii shaqaalaha iska ahaa wixii la soo aruuriyey waxay noqotay lacag magacaya heer waxay gaartay dadka reer koonfurka magaalada hargeysa degan inay yidhahdaan digil ibn fulan inay sheegtaan qofkii reer koonfurna markii loo fahmo dadka u dhex joog markii la yidhahdo maxaa lahayd digil ibn fulan dadkaas waxba maqaliyaan markaasaa la awga dadkii noo gurmaday hargeysa waxaa kaloo ka dhacday intaana ka bixin xilligii la dhihi jiray ormada la qabana meesha laga saaro yaan tegey mar aan soo laabtay meesha tegey
iyadoo golo waxaa jiray digili mirifla xoogaa yar khilaaf yaraa jiray miriflahan gooni isu taagay digilkii gooni isu taagay arrintaas waxay ka timid waqtigii mandatekii oo doorashadii guddooyinka la magacaabay 2 sano aheyd baa dhamaatay mar kale in wax la magacaabo xoogaa walaalaha way ka yara diideen marka saasa xoogaa khilaaf yar marka meesha tagnay waxaa la yidhi dadka reer koonfurka waa in ay samaystaan kaar oo qaxootinimo ay ku qoran tahay dadka qaar waa laga qaaday mirifla qaadaa laga qaaday digil 2 qof aa laga qaaday marka waxaa la yidhi suura la isugu imaanayay talo baa qolihii digil qola digil baa meesha ka jira guddoomiye leeyihin afhayeen leeyihin waa laga yaabaa in garanaysaa markaasaan inastee wax loo wadaa sidaasaa wax loo wadaa suurtagal maahan inaan kaa qaadan anoo hargeysa joogno reer hargeysana ay dhulka shabeellada hoose ay degan yihiin beera ku leeyihiin wax isqabanaya maaha warkaan dowladda ka soo baxay waxaas ma fahmi karnaa siyaasiyiinta waxooda waa ka wareeganay go-aan waxaan qaadanay odayaasha dhaqanka inaan la fadhiisano salaadiinta iyo ugaasyada soomaalida waxaan la fadhiisanay qaar ka mid waxaan ku nihi warkaasa dowladdiina ka soo baxay anagana nooma cuntamo oo si adag sababta anaga hargeysa inaan ku noqono qaxooti qorshaha nooguma jirto kumana soo bixin waxaan u arnaa inuu dalkeena yahay arrintaa wax ka dhaha markaas yidhahdeen hadda dowladday ka soo baxday warkaan war dowlad ka soo baxay hadda lama celin karo maxaa yeelnaa waxbay yidhahdeen laabas dhib baa lahanaan karo haddii aad caddaysaan oo tidhahdaan annaga siyaasiyiinteena waxa ay noo gooyeen aan ku raacsan nahay aadna tidhahdaan waxaan idinka marti idinkaga nahayaan haddaad odayaasha dhaqanka tihiin in aadna siisaan waqti aan ku guuro waa guurinaani hargeysa kaar uma qaadanay ama ciddii deganaanaysa si xurriyad ku jirto oo dowladnimo ku jirto qofkii shaksiyadiisa kaar u samaysanayo ha u samaysto laakiin anaga oo ah odayaashii digili mirifle markaas go-aanka aan gaarayna digil u banay laakiin magaca digili mirifle aan geedsanay magaca digili mirifle ayaan qaadanay mirifle waa nagama qayan markaas waxaan idhi annagoo digili mirifle suurtagal maaha inaan idhahdo hargeysa ayaan magaranaysaa qaxooti ku noqonaynaa odayaal dhaqameed anagu ah ma ansixinayno ninkii shaksiyadiisa aad ugu samaysanaysa inay jirta damiinna kamani ama anaga haddii dowladdiina idinka sidaa isku raacdaan waqti noo sameeya oo aan hantideennii kula baxno oo aan ku guurno way naga tageen way soo tashteen 2 maalmood kadib way noo yeereen waxay yidhahdeen waxaas ma jiraan soomaali waa soomaali waddankeedkaa iskale wax haba yaraatee oo kaarol idin goynaya ma jirto waxaad guuraysaana ma jirto maxaa ka keenay dadka warkaas waxaa ka keenay haddii aniga aan soo baxo oo hargeysa la yidhaahdo ka guur ama kaar samayso aniga awood waxaan u leeyahay على الأقل ولوين من إنسان المسلم جوجا مكالمة ما سمين كرو ما سمين كرو مصلحة أوروبا وشغالة هوسني كهرجيس تكن أنا وكما قبل هرجيس وحنا جاوا تكاير أنا كفرتين لكن استوى حنا جاوا شغالة هوسني كل هاي أنت مكورتا مكان يساوي بيرو مصلحات بدل وحبنا بعدين عصر فيني ما أنت دم وحنا كلنا ما يتكبر والله ولا كفتها أصبرني ونو ما كلا أي دورش على هذا الكاس كلني ما كنا يرانا بقولين haddii aad ugu khasbaysan qof noo samayso anagaa samaysanayna maya anaa magacaaba hadda adiga magacaabis macnada waa kaaga tegayna isagayna ka timid wuxuu yidhi waa la guura haddii warkiga la yaal waa baxayna warkii waa la dejiyey maalinta dambe wuxuu yidhi hadda korna siday ahayd buy waa tirahdeen haddana sidan wax ma qariyaan marka iyaga annaga waxaan ka fiirinay buy somaliland badan baa deganay koonfur weliba koonfur oo shabeellada hoose baayay bukol deganan ognahay waxay inala soo hadleen waxay yidhahdeen haddii dadkaas soo dirtaan anagana deegaan ee beer noo diyaariya sidaasayna yidhahdeen saas darteed dadku waa joogteen oo fiirso waa dad qaxootiya 4 qof meel joogto wax waa la qabsan karaa marka waxaan aad u faraxsanahay maanta dad dhalinyaro ah aqoon-yahana maskaxdooda furanta faresha oo u soo istaagay arrintan iyadoo xaaladdan weliba ay taagan tahay inay u bareeraan yani horta aad baan ugu hambalyaynaya laakiin waxaan idiin sheegaya waddada la mari doono wadda sahlan maaha waddada la mari doono wadda sahlan maaha waxay leedahay kaabado iyo caqabado fara badan waxaa kaa hor imaan doona dad badan oo dadkaaga waxaa kaa hor imaan doona aqoon-yahan gaari gacan lagu sido aqoon-yahan he gaari gacan lagu sido marka meelaha xuddudu waa ka soo ma kaasaa kaa hor imaan doona oo digil ah ayaa kaa hor imaan doona waxaasoo dhan waxay u baahan tahay dadnimo iyo magaan naftii hurneyo gobolka waxaad ogtihiin waxaa ku soo kordhay hadda in dadka la iska dilo oon soomaaliya inteeda kale ka jirin taas mala socotaa waa la diraya dadka markii la dirayo weliba dad baa lagu dejinaya kalsooni isku qabo iyo baqdin aan la qabin darteed waa la diraya maxkamad lama soo saarin laguma cadaynin lama xukumin waa la fuliyey bas waa la fuliyey ciddii fulisayna isma qarin dadka fuliyeyna gobolka uma dhalan gobolka uma dhalan maca daalika waxaa lagugu dilayaa shaar dowladeed baa la gashay bilaa calaykum digil shaar dowladeed lagu jiro ma jiraan walaal siyaasadda kuma jiraan in badan oo kamid waa fariistaan nimankooda ugu sarreeya digil midna waa fariistaan sidaasaan uga dhacday meel kale ka baxeen arrin kale ka diseen weliba waqti kale iska daayay liiskaas waa furaya waxaan idiin sheegaa liiskaas waa furaya qofkii baqaay hadda waxa weye gadaal u noqonayo xogaa iska xishoonayo ha u laabto dadkan raadinayan waa idinka
dadkeena raadinay oo la rabo in dadka laga saaro waa idinka qof soo jeeda lama rabo waxaa la rabaa gobolka inuu kusoo haro nin baqaa hadduu waxaa tahay hataa baqaa isgaadaya wixii la rabo dushiisa lagu qorto miiskaas wixiisa laga saarta lagu qorto nin saasa waa digin waa aqoon-yahan waa siyaasi waa taqaanaa wejigiisa kugu soo jeedo laakiin dhabarkiisa waxbaa lagu qoranaya isagana samiicadda waa hadlay wixii lagu soo qoray u sheegay nin noocaas oo kalea imid iska carara dalkaba ka carara in nin iyo jabo yidhaahdo meeshaan wax ka jira ma lahan carruurtayda aan iska korsado intaas inay soo hartaan la rabaa dadnawad baa siminaa waxaan isugu nimid afgooy oo 3 maalmood socona waxaa laga hadlayay isdhexgalka waxaa lihi bulshada waxaa ka soo qayb galay dhammaan digiri siyaasiyiintooda intii ugu waaweeyey way yimaadeen qaar gaar lagu keenay waxtaanka lagu keenay maalintii koowaad khamiisku ahaa uu furnay maalintii labaad jimcaha ayaa fursad u helnay inaan hadalno dadkii waa la hadalna siyaasiyiintaha meesha fadhiyey hadal ay fahmi karaana kala ku hadalno waxa jiraan lagu sheegay waxaan isdhexgalka bulshada anagaa bilownay shabeelada hoosadaana naloogama horeeyey sababtoo dadka maanta degan waxaad arkaysa dad badan oon deegaanka ahayn qaxootinimo lagu keenay maantana aan laga ahayn oo la takoorin oo la riixayn oo gabdhaha la siiyey oo la soo dhaweeyey waxaa jiray dad iska socda oo meel u socda aan aqoon dhalinyaro ah oo dhahay xirnima u socda waxbarashaan rabaa waa la soo dhaweeyey qur-aankaa la baray cilmigaa la baray gabadha waa lagu daray maanta waxay ka mid yihiin deegaankay ka mid yihiin kuwii iyaga ahaa waxay sameeyeen mooryaan ayay noo keensadeen oo reerkooda markaasay yidhaahdeen anagaaba meeshaan asal u lahaan jira waxna dilayana waa iyaga marka isdhexgalka adigu noocaas yaa ma rabnaan isdhexgalka hadduu noocaas yahay naga daaya ma rabnaan kii horaa kusoo gubanay waxaan rabaa marka inaan ogaano digilow khaasatan dadka gobolka shabeellada hoose dega sida horteyda ay dadka aqoon-yahanada mas-uuliyiinta ay sheegaan waxaa loo soo socdo waa gobolka dadka kooda way haystaan wax kale looma soo socdo cid kastaba sheego wax loo soo socdo waa gobolkana dad la-aan maaha aqoon-yahano waa jira dad waxgarada waa joogaan laakiin kamaan kala maqnaan iyo iska warqab la-aan ayaa keentay sababtaan maanta heerka la maraayo shabeellada hoose cid laga warsado male waa albaab furan qof walbuu soo galaa siyaasadiisa wuxuu rabu ka fushadaa arrintaa haddaad u istaagteen oo aad u istaagteen inaad ka hortagtaan annagana garabkeenaan nahay waxaan idin sheegaynaa odayaasha yani anagoo afka odayaasha ku hadlaya waxaan nahay garabkeenaan gadaashiina ma nihin garabkeena bal hortiinaan marayna waxaan jeclaanayna wilbati meesha ugu dhimanaya in annaga hormarno waxaa la yidhahdaa wiilka iyo aabihiis geelidu waa wada qoran yihiin laakiin odayga wuxuu ogol yahay wiilka inuu ka dambeeyo odayga si uu dhinto wiilkan saasu baa lagu yahay soo saas maaha odayaasha anaga waxaan jecelnaha marka anaga inaan horumarno idinka dhalinyarada aan naga dambaysaan laakiin waxa aan ognahay waxaan jeclaanahay in aan wax badan oo ka mid a aan idinku wareejino saa darteed waqtigeena aada u gaabiya hadalka waa ku dheeraaday gobolka shabeellada hoose duulaana lagu yahay duulaankana maanta waa laga soo gudbay xilligii xafadii sabka ahaa waxay maraysaa qaalin bay maraysaa indhaha fura shaar dowladeed baa la isu gashanaya markaasaa lagu leeyahay gobolka wax ka nahay bilaa calaykum cadaado taga oo guriceel taga oo puntland taga somaliland taga nin digili mirlo xildhibaan ka soo hela wasiir ka soo hela maxaa waay gobol galbeed maxaa keenay weliba shabeellada hoose ka socdaa miila maxaa keenay goormeen noqonay annaga ree cadaadana annaga ah goormeen noqonay ma jirto annagaa seexanay marka inaan hurdada ka kacno haddaan diyaar u nahay annagana waxaa idin balla qaadayna inaan diyaar nahay oon garabkiina taagan nahay hortiina socono arrintaan maanta meel uga hasta male almiin haddaan anaga tegayna dadka naga dambeeya meel ay harsadaan aan kaga tagno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu badan iyo xasuusinta badan oo dib inoogu celiyey hadalkiisa weli kama dhargin laakiin waqtigoona haya awadeed horaan ugu sii soconaynaa aad iyo aad u mahadsan yahay waxqabadkiisa iyo hoolihii iyo meelihii wax ka soo qabtay dadka halkaan fadhiyo dhammaantooda dad kala liita ma ahan waana aqoon-yahano waana odayaal dhaqameed oo wax badan soo qabtay waxaa la yaab leh iswaraysiga aan iswaraysanay waxaan ogaanay in gobolka shabeellada hoose aqoon-yahanada ugu badan inay ka soo baxdo maantana waxaa xaqiiqo ah in warkaas oo mar aan isdhahnay inuu dhab yahay waxaa ku xiga xuseen abubakar cali haddii aan waxyar ka faalloodo waa ninkaas waa master wuxuuna diyaari rabaa baajka wuu ka soo gudbay masterka wuu ka gudbay doctora iyo PhD ayaa maskaxdiisa ka guuxiisa wax badanna wuu soo qabtay titleka uu ka hayo Soomaaliya waxa waaye hay-adaha caalamiga ah ayuu u qaabilsan yahay Soomaaliya
kawaran marka in aan iswaraysano wax badan ee wax taraysaa haddii aanan socon lahayn nin noocaas oo kale ma arki lahayn marka saa darteeda waa hay-adaha caalamiga ah waa kuwa localka ma aan caalamiga ah ayuu wuxuu ka yahay u qaybsamaha arrimaha Soomaaliya aad iyo aad ugu mahadcelinayaa inuu maanta la soo ajiibo noo imaado waqtigiisa qaaliga badanna noo horo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waan soo dhaweynayaa Xuseen Abubakar Cali falyatafadal الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إله سبحانه وتعالى يا مانسان وإنكرس يمانتا إنه كهذا المدنتين حاضر وكمان ودياشا ودوميها فكيها وزومي كبيرينكا ولينرضا هوينكا إنه كمان تيتلوضوضا يوم لعاه كان يكفر يانا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ولا ليال هل كان أوقع لنا ما أنت أرنا الربي إن هري وقفته والآن هو إن الصوت عليه لكن وحام وقفته إفعالها هذا الموضوع هاي إن شاء الله تعالى سيدان وجود كرتيبا أولياء داعت إكتاء الناس إن هل كان فليان إن شاء الله تعالى مردونا إسبدل حقيقة أو طبقة يهرمر ونكسن في تلافسن دور مرة وقلت شغالة روسي تاريخ إذا توقع كعضي مرة حقيقة استقبال لايهين قولت هذا الشيء وقول أبليشن كيساءات وبدينه نقالها تصوبحات وبدينه ذلك التكن أيهن ذات أقويهنا bal ay yihiin dad diiniyan imaadiyan ku wanaagsan marka dhibaatada jirta ay xaggay ka socotaa waxaa waa analyzing in la sameeyo dadkeennii way kala qaybsameen aqoon-yahanadeenni waxaa ku jiro dad dhiig leh karti leh oo fahmayo arrinta meesha u socoto sidoo kale waxaa ku jira dad dhawarka laga taabto oo lagu shaqaysto oo meeshay wax ka socdaan meesha wax u socdaan aan fahmayn sidoo kale odayaashiin way jiraan ma rabo inaan dhaleecin halkan ka jeediyo laakiin waxaan rabaa inay soo baxaan inuu ku hogaamin lahaa qof dantiisii u socdo oo meel gaban wax ka fiirinaya intuu ku hogaamin lahaa dadkii lahaa kartida aqoonta dadnimada ku jirtay inay boorka iska jabaan oy dadkii hogaamiyaan waa muhiimadda ugu weyn oo halkan aan u fadhino maxaa yeelay shabeellada hoos waynu ka warhaynaa waxaa ka jiro dhibaato fara badan majaaca ka jirto dadkii way kacayaan way dhibaataysan yihiin mar waliba waxaa la sheegaya shabeellada hoosto waa qaxooti ah maca daalika waa gobolka ugu dhaqaalaha badan hadda waxaa ogaataa Soomaaliya insha allahu tacaala haddii dowladda caawa ka istaagto waxaa la qiimeynayaa wax la yidhaahdo wax soo saarka gudaha ee dalka waxaa la lahayo gross domestic product waxa la hayo jiro gobolka wuxuu noqon doonaa gobolka ugu wax soo saarka badan dadkiisana dictorka noo sheegay waa dad aad u tiro badan maca daalika wuxuu noqon doonaa gobolka taxationka ama canshuuraha dowladda ay qaado gobolka ugu dadka badan ee dakhliga dowladda soo galo marka gobolkii haddii uusan jiho u socdo uusan lahayn dad aqoon-yahano isku xiran uusan lahayn odayaal isku xiran uusan lahayn dhaqaalahaas lama soo saari karo waxa mustaqbalka ka imaanaya laga heli karo maca daalika haddana dad algaha ugu dhegan aadan ugu jeeda waa la sheegay waa dad shaarkaaga kula wato digil kula ah aqoon-yahan kula ah oo laga yaabo inuu kugu arko ku salaamo kuu dhoola caddeeyo haddana lugaha ku haysto xaqiiqatan luguhu ku haystaa inti midka kale asafiirin lahayd asaa lugaha ku haysto marka waxaa la rabaa dadkaasna in caqligoodii la soo celiyo lama rabo laga soo gudbay awood iyo ismuquunis iyo in dagaal la sameeyo waa education resistance in la sameeyo iska caawin aqooneed dhammaanteen waxaa la rabaa caqligii inuu shaqeeyo caqligii dagaalkii ishandadaadii iyo burburinta waan ka soo gudubnay mana rabno in gobolkeena inaga sababtayna inuu dagaal dib u galo ma rabno waxaa rabnaa gobolka inaan samada bixino hooyooyinka dhibaataysan carruurta waxbarashada la-aanta odayaasha dhibaataysan gobolka waa gobolka ugu liita
educationally economically politically whatever gobolka zero taagan waa sagxada marka sidaas daraadeed anigoo ku kalsoon dadka la magacaabay oo ina matali doono anigoo ku kalsoon oo intooda badan aqoon aan u leeyahay waa dad aqoon leh karti leh ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ugu baryayaa inuu garabkooda istaago waxaan rabaa inaan iyaga tale usoo jeediyo dhalinyaradii iyo dadkiina daawan doona tale aan usoo jeediyo waxaan rajaynayaa inay qaadan doonaan waxaan rabaa inaan usoo jeediyo guddigan la magacaabay inay sameeyaan sacrifice inay sameeyaan naftooda inay yacni ku horumariyaan oy dhiibaan ma ahan iyaga dad raaxaysan doono waxaan idin sheegayaa ma raaxaysan doontaan ma nasan doontaan waad idinka hor imaanayaa waa suno kowni ah oo jirta qof walibaa wanaag u istaaga oo horumar u istaaga samafal u istaaga dad baa ka hor imaanaya marka waxaa idinka rabaa inaad dhawad adeegtaan oo dulqaad muujisaan oo ilaahay dartiis u samaysaan ummaddiina iyo dadkiina inaad kala shaqaysaan horumarka waxbarashada dhaqaalaha iyo dhammaan wax waliba oo horumar ku saabsan oo dalkan uu gaari karo inaad shabeellada hoose usoo kordhisaan idinkuu dardaarmaya sidoo kale waxaana dardaarmayaa bulshada shabeellada hoose kusoo jeedo inaad garab istaagtaan maxaa yeelay haddaad dadka idin matala aad garab istaag weysaan oo garbahooda dhaqaale ahaan iyo maskixiyan aad u istaag weysaan wax ma qaban karaan idinkuna dusha la idinka saarnaan doonaa adalkaan meel ha lagu qoro maanta haddaan dadkan garab istaag weyno wiilashaan aqoon-yahanada ah oo iyaga sacrifice sameeyey oo horumarkan na horseedi doono haddaan garab istaag weyno waxaad ogaan doontaan willigeen kama bixi doono ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa tani inay noqoto bilow wanaagsan insha allah mustaqbalka soo socdana loo aayi doono oo ku mahadsan tihiin جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ujeediyeyna waan qaadanay golaha oo magaciisu yahay badbaadada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose inaan u halgano diyaar buu nahay si barsoorka noo sheegay diyaar buu nahay mise shakiyaa lagu jiro madaxda la doortay dardaarna la siiyey ma raaxaysan doontaan waa inaan nafsadiina u qadintaan u horumarisaan yaana la seexanin oo habacsanaanta digil ku jirto idinkana qayb yaana laga naqanin horaa loo socdo barsoorka aada ugu mahadsan yahay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa dadka ugu badan oo soo barakacay waa gobolka shabeellada hoose anigoo munaasabadaas ka faa'iidaysanayo oo barsoorka noo sheegay waxaa maanta inala fadhiya gudoomiyaha guddiga barakacyaasha ayaa nala jooga oo asina ka hadli doono xaalada dhabta ah ee gobolka shabeellada hoose dadkii kusoo barakacay duleedka magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka haysta asigoo soo koobayo waktigana nala ilaalinayo waa macalin aadam booro waa odayaasha dhaqanka waa guddiga gudoomiyaha guddiga barakacyaasha duleedka magaalada muqdisho soo dhawow والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحاول السلام يا صلاة إسلامك علماء دينك أضياش رقمك اليرون كبداهنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xafladan oo aad iyo aad u qaalisan oo aan kusoo qaybgalay golaha badbaadinta beesha awdigay khaasatan gobolka shabeellaha hoose dadka ka soo jeeda waxaan leenahay hambalyo waxaa farxa iyo maaragtay kale igu ah beesha awdigay oo hadda maanta garbaha is haysato oo maaragtay halkan goobahan oo sharafta leh oo maaragtay isku timiday iyagoo maaragtay oqaanweer oo maaragtay odayaashooda iyo waxgaradkooda iyo aqoonyaashooda iyo gabdhahooda is haystaan maasha allah aad iyo aad baa idinku mahadcelinaya insha allah waxaan ugu gudagalaynaa marka gobolka shabeellaha hoose
وسيدا ما أرتين نوشيغين وقول برهد سؤال أبي أبي ويكل وحان لنا حتى بيش أو تقل بيش أو تقل أو تقل وقت المترى ما تمارتين هذا ما تقول سوق عليه وحاول رواينا ما تسلا عمها سوق قبستين أو لغا قدرين أنا يا ما أرتين وحاول ما أرتين أدانا هكذا بدو بركعيش وحانا إلا عدد عن بسوء قول الشيء الخاص marka intaasna meel ugu aan dagaalay gobolkan dad ugu badan oo ka soo qarakacay oo ka dhibaataysan waa inta u dhaxaysa degmada Galbeed ilaa say ka dheer 30,000 oo qoys ma gaadhay wuu ka sii badan tandarro iyo waxbarasho la'aan iyo waxa uu arkin iimayl oo markin geedo hoostooda iska fadhiyaan qof maanta halawaan ha ahaado ama ma artayna oo dawladda ha ku jiro ama koonfur galbeed ha ahaado oo u soo istaagay midna ma aan arkin dadka maanta mas-uuliyadda oo u soo magacaabeen waa iyagaa ka mid maanta waxaan leeyahay labaanada in lala xisaabtamo naftirkooda dadka ku soo jeeda gobolka shabeellaha hoose beesha oo tegin oo labaanada ka mid ah ama koonfur galbeed ha noqdaan ama dawladda dhexe ha noqdaan in xisaabtan dhab ah loola imaado maxaa u qabateen dadkiina dalkeena maxaa u qabateen qofka maanta inuu soo magacaabo meel iska fadhiisto oo gurigoo had iska dhex fadhiisto waa xaaraan ilaahayna waa la xisaabtamaya marka waxaan leenahay aan isku dhaqmaano aan ka dhabeeno maarta gobolkan waxaa way maarteen gobol ma anfacayo oo khayraadkiisa iyo wixiisa dhan oo ma anfacayo meel kale wax kama raadin dibad hataa wax kama raadin haddaan noonaaga maarta gacmahan isqabsano aan ku qadeen insha allahu tacaala waxaan leenahay dhaqaaqo yaanin galen maarta aan iska ilaalino dadka oo maarteen oo naga maqan iyo intaana dhimanaha oo maartaan si hoos aan iskugu sheego fadlata fadlan aan aad iyo aad aan isu balaarino wax kasta si walaaqay sheegay waa lees badan lagu hor imaado dad badan oo aqoon isu maleynaya oo dadkiisa oo maartan wax yar haddaan isiiyo maartan gadaal marsanay badan iska jiraan waxaan halaga talasulo walaalka aqaa sababto ilaahay adeega ku garab galay toobaad in la sameeyo in gacmaha la qabsado annagana maca horteena soconaa gadaal idinka maramahay haddaan nahay odayaashii iyo maartan waxa kaleta dhalinyarada iyo gabdhahan annaga dhan annaga isku duuban iyo salaadiintan iyo aqoon-yahanadan aan yaan kala helin gobolkan maartan aan si dhabta ah maartan aan u qabsan insha allahu tacaala hormar waa gaari doonaa insha allah ilaahayna waana garab gali doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad u mahadsan yahay waxaan naga rabaa inaan soo celino dadka ku dhibaataysan oo 30,000 gaaraya oo inoo sheegay in aan gogol xar u naqano aan badbaadino waajibna saaran waxaan ku xijinayaa kaalinta haweenka lagama maarmo haweenku waa horumarka koowaad markaa waxaan ku horeynayaa luul maxamed cabdullaahi oo ku hadlaysa magaca haweenka gobolka shabeellada hoose soo dhawo luul أهلا وسهلا يا أنت كسوق كشيء حتى دام روح البدر أنت قبل قابسي دمانتي أهلا وسهلا ما تحاجة حتى أنا كسوق جيدا شبيلة هوسة أنا نقول اللي يرى بدر كسوق جيدا شبيلة هوسة سيدا أبياش إنه كله يرى بدها أهلا وسهلا وحنهم برينا من يرى لو ضرتي barnaamijkan kulli barnaamij aad u fiican waaye qof waliba oo kasoo jeedo shabeellada hoose markuu uu maqlo aad ugu farxi doonaa aad ayuu ugu farxi doonaa marka waxaa noo mahad qof walbuu og yahay wax walbuna waa laga sheegay inta yani ma ahan inaa hadal lagu daaliyo waa la wada og yahay shabeellada hoose wixii ka jiro maalin walban waxaan haminaa subax walba markaa soo kacno waxaan haminaa shabeellada hoose oo sideeda hore u soo noqotay marka ani shabeellada hoose waa ku dhashtay waana ku soo barbaaray siday ahaan jirtana waa ogahay markaan yaraa
haddana sideetan waa ogahay roobana waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu sideeda hore noogu soo celiyo aadna waa u mahadsantihiin waxba hadalka igu daalinaayo mar walbana waxaan jeclaan lahaynay dumarka in kaalin la siiyo maanta oo dhan rag badanaa hadlaayeen sida gabdhaha walaalahayga xataa salaam iyo hambalyo xataa inay noogu kala qaataan waa mahadsan yihiin in iyagan lagu soo dara aad ay fiican tahay aadna u mahadsantihiin madaxda oo naloo doortayna aad ayaan ugu hambalyanayaa shaqaana sugayso hambalyo ooban ee nagu soo jeedisay iyo sidii gobolka shabeellada hoose iyadoo yar oo ahaan jiray gobolkaas waxaan ka rajaynaynaa iyadoo weynna inuu sidaas isi ka fiican oo noqdo hadduu ilaahay na gaarsiiyo khudbaduhu waa isku xiran yihiin khudbad kale way kasii daran tahay haddii oo gudoomiyaha oo inoo sheegay xaaladda barakacayaasha xuseenna oo dhahay arrinta taala waa arrin aad cajiib u ah in wax laga qabto ditoorkana kaalin weyn ka qaatay cabdiqani iyo xuseen iyo rag badanba soo hadleen oo wax badan fiican qiimo leh noo sheegeen waxaa noogu xigi doona wadaad ka imaaday gobolada sool iyo sanaag oo islamarkaana ka warhaya xaaladaha dhabta ah ee halkaas ka jirtay ahna salaadiinta ka tirsan Soomaaliya waa Suldaan Ismaaciil Ciise soo nagu warbixiyo xaaladda ka taagan gobolka Sool iyo Sanaag waxaa cusub madan gobollo kale oo noo soo haray oo Boosaaso ay ka mid tahay iyo Qardho iyo ka mid tahayna qof baa inuu matalaya soo maray dhacdada ka haysato digil in oo inoo soo gudbiyo laakiin waxaan ku horeynayaa Suldaan Ismaaciil Ciise kuna hadli doono dhibaatooyinkii ka dhacay gobolka Sool iyo Sanaag si kooban oo waqtigan nala ilaalin doono soo dhawo Suldaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Inta waayaa ku salaameeyey dhammaan sidin dhayin salaadiinta siyaasiyiinta aqoon-yahaniinta dhalinyarada hablaha iyo haweenka oo isku qaybgalay habladaan iyo salaamiye iyo dadka soo gaarsiin iyo bacda saxaafadda dhammaantiinba mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waayaa farax weyn in iyo raareen in awdigil maaragtay guddiga badbaadida koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose oo maaragtay awdigil oo intay iska gooyeen oo danahooda qoramayeen aad iyo aad ayaan ku faraxsanyahay oo salaadiintii roogaan aqoon-yahaniintii roogaan hablihii roogaan indhergadkii roogaan aad iyo aad aan ku faraxsanyahay marka hadallada la sheegayna aad baa maaragtay hadalla aad u faydan waaye waa mid liinbog waaye laakiin inay ahaana hadallada isku dheh ahaane oo liin baahan inay la fuliyey la hergeliyo horeyaa liin sheegay waayo aan baahantaa dhibaato badan iyana ku maree macnaha rag oo angaagooda haraadaaw oo maarta dulqaad leh qofka dhirifaqan iyo koroo maarta walaadii kansida baydhay oo horkooy baadhaan ku dhirifaana iyo aan baahanta guddiga oo maarta badbaadada oo guddoomiyaha iyo cabdiqaadir sanshaah oo degida ka nooliyey iyo kuwa gudaha wakiilada ku ah dhammaantiin bixilbiin iyo siin saaray ummadda soo ku saaray annaga odayaalka dhaqanka ahaan garab iyo gaashaan iyo singina waayo aad iyo aad xanuun ugu haye gobolka shabeellada hoose dhibaatada ku jirta xanuunga aad inkahay iyadoo maaragtay gobolkii miya siyaasiin miya aqoon-yahaniin miya odayaal miya bal dhibaatada haddana intee ku socota may sida ku dhig balse waywaha taas way keentay isku warqab la-aan xiriir la-aan midnimo la-aan iyo dhibaatadaas bay keentay sidee baa ugu gudub korne hadda bilaawteen dhallinyaradeenii way soo ku faday aqoon-yahaniinta ah gudaha iyo dibadda ka noolin inay gacmaanka isqabsataan hor u socotaan sidaas ayay soo ku fadaan onana garab iyo gaashaan iyo sigina hortay ugu dhimadaana maahan maarta haddii aqlad kooyto inay soo gudub maraan gadaal maraan inay qaadateen taas intaa laha waa maxadantiin
gudoomiyaha caafimaadka oo sheegay aad iyo aad aan kasadin qadiyad digidii wixii la waaye haata digidii qadiyad digidii wixii la waaye aad dadaala waaye garabkii gaashan wada markii la isku gudubo sidii aan sheegay ninkan abdikaamil aniga gobolka sool 20 sano soo roogi maalinkii seeday buntland ma isdibadare markaas buntland majirnay soomaaliya jirtay markaas waaya madaxweyne ku ahaayey ninkii ahaayey maarta ra-iisul wasaaraha inta ku ahaada jiray iyo markaas madaxweyne ku ahaayey marka kadib markaas kadib iyaa la soobiyey buntland markii uu seedaanay gobolku markiisana gobolka sool waaya ana inta gobol waa markii la dhimeeyay tuulideed waa shay gobol la dhihi misal gulbaan garabka hakin hijra ama gaalka hakin hay tii sheegay ila gobol ku dhikeystan wala yar ku baadi 20 sano kala meelas ma ah meel garan diyaarad ma meel barda ma meel baarada ma hadaba way waa duurka soolaalida sakin wali nolosha ka tiirsanta islamarkaas muddaas gaabay tilaawooyinka oo qaadeen horumarka oo daareen gobolada gaad waa ku mid ah gobolada ku mid ah gobolka Sool horumarka oo daareen malaamida dhin suuqii oo marka isbitaalada isbooyinka horumarka oo daareen gaad marka gol oo leeyahay wada kormaataas waa midnimo iyo kala dambeyn iyo ka koy waa jira oo aan aad u yaabay anagu salaadiinteeni oo diyaalkeena dhaqanka oo dooray anaga ma ogno walaagi in dooran ma ogno laakiin dooran badna walaagi in dooran ma ogno hadii aad fiirin taas ay ku saabsan hab socodka iyo qaabki anaga dadka kala isticmaalaan iyo qaabka oo odayaalka kala isticmaalaan taas iyo indiriile inii ma arna kan dooran ma fahamsanayna kan dooran ma fahamsanayna ma walada laakiin aad doorti madiidina ku dhigto qowsar way hoolay diiti hoolaga inta taajawna waa yaalin baahan in la ogaado aqabadii dhibaatooyinkiisu sida gudboonadaan isla markii tolkii soo gudbiyo tolkiina wadooyinku qabadaan ayaa la faday garabkii gaashan u ahaadaan haddii odagii naftiisu usdoo ahaadaytiisa kasaan kiinta dooradin odagii garabkii ku bao mayna qabada korwaay iskana wanaan ummadda wada wadaagnayn aragni meelaas markii odaga lasoo bilaawdo hortaba waayaan ku aqabatira xagga dhaqaalaha annaga waayaan waayaan isku hayne siyaasiyiinteeni odayaalkeeni dhallinyaradana aqoonyiinta hablahaani ee maarta iyo haweenka waxgaradka ayaa uu isku warhaayay haddii uu isku raay lahayn gobolkeen taa gudub marka soo biilahayn mana iyo lahayn tabta timaada ka badan hadda wali hore tabeen hadda iyo gobolka jidada haddii uu digay gaaman kastabsaneen xaalad gobolka bedeleen soo walaaqaysi kamarina ilaahay uu ogna dadkay weerarnay iyagoo soo baxeen oo subaxnimo oo leeyahay marna saqiga kooya dadku soo basadeen gaar soo saarleen iyo kuwa shaqaalaha ah koobka kamina dhowrayeen ciidama xaraareen baabuur adeenshaan saqigaaseen ayagoo marna doorkii ardaan aan quraan aan qadayn oo qaadaysan iyo baabuur saayay fikirada laga dhaawaa lagtidaali oo aan dhahayto Puntland in Soomaaliland intahayto sababta Puntland mashaar quraan Soomaaliland masku qaadan Puntland meel ma jeey karo sidaa taraadee markaas iyo marka anaga ku hadalin dhalooyinka codsi waaya ujeediyay dadkaaga in 3 bilood hadisiyo way aad in garabsiyana saxaafadda iyo aad in garabsiyana 3 bilood hadisiyo 3 bilood hadii dhamaato gabadhayna hadiskatana biraayaan 3 bilood markii si qabsado hayo ma aha in wal oo maarta rabitaanna sababta oo 3 bilood dadku shaqaalay muddo ku noolaayeen deeqa dhigay deeqa kuma qanta lacagaad kaleeyeen lacagaad dhigay 3 bilood oo xabsa waaday lacagaad dhigay inay biyaan tii dhigay ma aragta oo usbiyaanti layin soo urslaan intaas way markaas way ku qodsaday hay'adaha samafalka caalamka ayaa way ku qodsaday dadkan hadda iska afgasta dawladda iyo inay maalintii waqtiga dhamaado hormud inay ku helo si lama gobol ay degmada kasimo antaas markii ku waramay nasiib wanaag isla habeenkii ayaa isku jawaabay horta wasiirka arrimaha gudaha isku jawaabay isla markaas way isku jawaabay wasiirka dejinta isku jawaabay isla markaas way isku jawaabay madaxweynaha Sinaani ayaa markaas madaxweynaha
iyo isku jawaabi arrintaas oo dowladda isku batay oo og ma aha sidaasana dhee barakayaalka wixii ka dhaheen oo isku raali ahaadeen raali gelin iyo lagu dhiyaanayaan intaasaa soo marnay digilow meelaas markii roogayna iska doobanayna una digil markii iska doobanayna anigana waa yahay suldaanka reer koonfureedka dhan ahay isla markaasna gudoomiyaha baraka iyo qaxootigana iyo ahay marka talkaya dalbadi anigana waa yahay taa waqtiga halahay dhiman intaday dalkaalay ka dhamaysay iyo dadkaan mujuudiga iyo maskaada dadka iyo dalka ku wargay hadalkan isin ka dheeraay walaalayaalow hoolun bilaawati dib anuu ku dhiinay waa la faday inay la kooyaan guddiga qorsho oo ka talagal saddex bilood bay gabadha korne maynin qabsoomeen gabadha hortaagin horta inay qorshaystaan lixda bilood bay gabadha kor sanad bay gabadha kor lixda bilood inay la qorshaysatay markii lixda bilood dhammaatay aqabadii ما يقول ولا يقول الطاقة وفلان ولا يقول عقبات النوع حقه تمام إن كيس تمام كنت الحساب تمام اللي سوقي هذا حساب تمام أنت هذا حساب تمام والدنا مدران والوقت سيجنا لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن هذا الأمة هذا علني يا سلطانك intaasoo hadal waxaa loo sheegayaa ama qarin loo dirayaa waxawaaye dadka la doortay inay dhibaatooyinkaas oo lasoo sheego dhan inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka way istaba joogaan oo arrimahaas ku saabsiisan goordhow waxaanu ku soo maqan cabbaas cali nuur cali oo ka hadli doono dhibaatooyinka ka taagan puntland gaar ahaan deegaano boosaaso ay ka mid tahay qabdho ay ka mid tahay garowe ay ka mid tahay lagu hayo digiri milifle gaar ahaan aw digir soo dhowo cabbaas cali nuur ujeeddadana waxa waaye in dhibaatooyinkaas jiro iyo ummaddaas in la badbaadiyo waaye waqtigan waxaan ka codsanaynaa inay noo soo koobaan maadaama in badan aanu fadhinin. السلام عليكم وهلا مقعد مع عباس عن العلي I'm from Galbeed وحكيت على Galbeed وحنا هاي الوالد وقصي koonfur Galbeed خاصة shabeelada hoose waxaan ku dhashay tuulada yiraahdo beriire ay hoostayda afgul anigoo jira jir baa laga kaxiyey oo waxaan aaday Puntland waxaan ku soo bartay dalada Galbeed waxaan ahay two bachelor information technology and public health mid hadda aan wado public health ilaa intaas oo dhacba yahayd wuulay waxaan rabaa aan ka hadlo golaha badbaadada koonfur galbeed waxaan aad ugu baadinayaa dadkii ka soo qayb galay ay soo ajiibeen nolosha quruxda badan iyo dadkii soo diyaariyaba koonfur galbeed حبا ستة سؤال كبيرة من الوجه بس مرة أنا كوبيو مرة أنا كهل وحنا وحيران هم رئيسين يقولون إذا صيدا ما تريد كامل وحيران بتعلم يكيه كونفور قلبت صوماليا تستحق المشاغي كونفور قلبت وتذكر بعض الولايات والكل بينات وحنا كلنا نقول يجرى إن شاء الله إنه مضى معناها سنساعد كمشاهدين هذا هو بدر الكعسك إلى هذا الفرق كونفور قلبت بالواقع بين مرة ومرة بنايا ما هو من تقيل إلهي من تسكير لو تجده يدي هو الحمد لله لا إله وشكره واحد يشكره واحد بس واحد سبابين يا يحيى سبب اسكت يسكتش بدبادين معناها بدبادين تكلية طبعا يفتشر ولد سؤال كبير على ولد ولدي وحيد كونفور قلبي مثل هذا خاصة بدون الشغل الوسط مثل هذا ما دام أرسلت تبقى أولنا أولنا محل كل يتبقى أولنا تجربنا الصومال سؤال شكلات صارت ستدرس أوكي محل كالقارب إذا كنت كانت تجار قفل بمبدأ الدولي والليلة قفل بمبدأ قفل بتكسر محل كل شيء إنه قفل أصلا ما بكونه قفل وقت ما بكونه سؤال شغلة مش نعم ما أعرف إيه بدنا نوصل لك تقول ما بدي هاي أنا ما حدث وجهها
digri waxaana ku noolaa puntland waxaana ka mid ahaa situation ku magacaabay inay yihiin markaas digri ku nool garowe khaasatan magaca puntland ma baaqaadanay laakiin garowe kama aan caafin markaas waxaan dhisnay ilaa iyo 4 guddi oo boosaaso ay ka mid tahay oo qardho ay ka mid tahay gaalgacyo ay ka mid tahay garowe ay ka mid tahay waa soo nimaamay nin saaxiibkeena kana la siiyo muhidiin ijraado ninkaas ay gudoomiye ma aha su-aalaha aan weydiinay maantaas ma ahayn inaan kasoo qaybgalayno iyo inaan micnaha madaxnimo aan raadinayo inaan dadkayga sooraasa igama ahayn waxay iga ahayd waxaan arkay ardaydeeda koonfur galbeed ka soo jeeda jaamacadaha puntland wax ka barta inay fuquuqda dadka ayaga ay u liitaan madaxda qaar baaba ku qabata macnaha raali ka malini inay yidhaahdaan cudur ka soo jeedo baadi boqolkiimada daxkuto su-aasha aan weydiiyey maalintaas anoo caraysan baan imi waan fariistay waxaan ku idhaahday iyagoo hal su-aal ama laba su-aal baan wata aadin weydiiyo waxaa isku magacaabay inaad tihiin dad noocana isjoosha noocaasa magacowday maxaa u qabateen dadkiina hadafka aad damacdeen inaad dadkiina iyo aad gelisaan maxaad ku damacdeen xaggee waxdii maraya waxaan nahay ardaydii nanoo soo sheegteen nanoo soo bandhigteen aqoonyahanadii dadka waxu baranay maadaama aan nahay nanoo soo bandhigteen fikir hataa hataadi ku darsan waa muhiim soo dhaweeyey kadib waxaan fiiriyey analysis habra aan sameeyey waxaan fiiriyey barnaamijka in ay ku yar tahay fikir dheer adduunka waxaa loo fikiraa future ee lama fiiro wax dhow lama fikiro khudbad baan soo jeediyey maanta laba aan ka soo jeedinayo jaamacadda puntland state university oo kasoo qaybgala madaxweynaha puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka ama ka hadlaya maalintaas koonfur galbeed oo idin aan ka hadlayo oo aan kala qaybinayn masarka ay ku leedahay sabti ay ku leedahay micnaha wax soo saarka productiga meesha la keenaya xakameeyaasha keenaya garowe keenaya xabadda mooska saalku inay koonfur galbeed khaasan dhulka shawhoos inay ku shigata beerada ka soo galo ama taaskameen aan beerada aadin ama aan soo goosan jirin inaan soo goosan jirin ilaahay intaas ugu guulaystay sababta maanta hore walba ka soo jeedo meel walba ay koonfur galbeed xafiisihiisa biyuhu u samaysanayaan ingiriistaanka wax kala wadaan wax kala ma aha waa nimcadaas su-aasha meesha taala waxay tahay waad soo qalajibisay maanta waxaa kasoo qalajibisay isticmaal isxabadeen isku degnaan iyo in ninka dhintaano waxaad kasoo qalajibiseen maanta aqoonyahankiina la geeyey meesha ugu samaysan macnaha loo geeyey uusan aqoon inaad u sheegtaan dhammaan usoo qalajibiseen haddaan waxaad idhaaha nolosha cusub ugu horay waxaan aad ugu faraxsanahay sirkaan aad u qiimo badan inaan kasoo qayb galarto maanta anoo weliba ka hadlayo arrimaha qiimaha weliba aqoonyahanada annaga waxaan u baranaa wax kala maa muhiimkeena maaha inaan waxaan u baranaa muhiimkeena maaha inaan wax ku qalnee ee waxaan u baranaa dadkeena siduu ku horumari lahay dadkeena sidai ku horumari lahay markaan koonfur galbeed wax u qaban aan soomaaliya wax u qaban karnaa okay waqtiga ahay awgeys waxaan inaa waqtiga badso waxyaalo badan ugu jiro awgeys bas waxyaasha 5 daqiiqo egsi dasha amaasanta sababtaan wax u barnayno aniga intidid ka hooyo ahaan isla ayaa kasoo jeeda anoo nin ciise maxamuud hooyada ciise maxamuud wey oo bajeerteen sababta halka ay keentay waxay tahay inaan dadkayga soo dhado qof walba dadkiisu waxmiye marka aan rabo inaan xil raadiyo marka aan rabo inaan institution iyo wax ama education waxyaala ka qayb galo kooda wax ilan yaala waxaa waaye backgroundkaaga iyo balaha kasoo jeeda haddaan hadda aanan magacayga aan kor u qaadan markaan magacay kor u qaadan waxaan kor u qaadi karaa meesha aan kasoo jeedo gobolka aan kasoo jeedo keliya aan waxaan u baahanahay markaan iga qaadaysaa maxaa keenay si toban qofood inay qofooti noqdaan iyagoo intaas oo nimo ilaahay ku gumaysta
su-aasha sidiya baa maskaxdeeda ku wareegsan bas waa doonaa maxaa keenay koonfur galbeed inay dadka ka soo saarto tigid iyo brife maxaa keenay inaanu ku faani karin haddaan joogo puntland iyo haddaan joogo soomaali belgrad su-aashaas keliya waxna hayso sababta iyo jawaabta koonfurta waxay la israel jawaabtaas waxay ka imaan kartaa dhexdiina haddaad fikirtaan caawa guryihiina marka aadaan ama galabta marka aadaan waxyaro tunanta qaarkamida maskaxdina dib ugu leebta fikira maxaa keenay inay burburka iyo qallaasa koonfur galbeed keliya ay ku jirto hadda waxaa dhigan isqabsi siyaasadeed baa fikrada ka socda maxaa keenay inay dowladda federaalka ay fargeliso koonfur galbeed su-aalahan isweydiin mudan macquubaan weer isbadlaan weer puntland waxaa ka dhisan institutiono badan waxaa mimbarka ah gruubka dhalinyarada gruubka ugu horeeya oo la qiimeeyo markay ay u baahdaan inay madaxdooda la hadlaan ay wacani karaan oo halkaa fadhiisan karo qof walba oo dhahi karo maxaa qabatay maxaa xaggaa maraya qaabka waxaa laga qaldan baa la sheegaya hal mar marka waa sidaa u ah oo koonfur galbeed kulligeed la dhacday geedka markuu yaryaha hadduu qalocda qalocana buu ku yimaada uu hubin waxaa naga qaldan waxay tahay dhalinyaradii baasi qaldan ku fikirta aqoontii ilaahay ku naneystay iwaadintii wax bareen si qaldan bay ugu faa'iidaysay qofkii wax bartayna dowladda waa kala cad oo bilaamor booqday qofkii aana arran hadda waa cararaya waa si socda sababta keentay baan idiin sheegaya marka maraaqyadii meeshaan loo fadhiya iyana laga wado sababta keentay idinkaa ka mid ah kow idinkaa ka mid ah idan labo rugta maxaa ka hadla kow soomaali galbeed markii laga hadlayo wax kale ma aha institution walboo la dhisayo dowlad walboo la dhisayo macnaha lagu dhisaa macnaha lagu dhisan waxay tahay codkuwa inuu bulshada ka dhex yimaada bulshadiina waxaa matala nabadoono nabadoonkii hadduu calooshiis u shaqaysan yahay maxaa hagaagi kara waxaana hagaagi kara batata yaa ruux been isu sheegay nabadoon walba haddii lala xisaabtamo laftuu ka soo jeedo la yidhaahdo qofka iyo qofkaa xildhibaankaasaa magacawdee xildhibaankaas muxuu taray muxuu qabtay soomaali baa lahaa inaan qabiilka sheega ugu bahan mara ka hadlay laakiin runta markaan ka hadlo qabiil baa ka socdayo garaan ahay nin garaan ahay kuma faadi karo sababta keenta maxay tahay inaan garaan ku faadi waayo kara urbuula ilaahi farsoole ilaahi abdul inta ka horeysa dhulkaas isagaa ama lagu tiriya maxaa keenay inuu farsoole ilaa iyo abdul aysan lahayn hal institution education ah wax laga barto hal meeloo caafimaad ah oo isbartaan ama hal amsi inuusan lahayn tusaale yar wax kale kama wado waa anigteyda beesnaarka magaala sababtoo marka wax lama sheego aniga aan iska bilaabo maxaa keenay nabadoonka inuu calooshiis ku shaqeyso noqdo oo halkaa fadhiisto oo xildhibaan gato oo halkaa geliyo xildhibaankaas oo lacag ka qaato xildhibaankaasna qof kale ama laf kale ka socdo inuu yidhaahdo waxaas iyo waxaas ii qabo tusaale waxaa jirta sana dugsiyada walba waxaa la bixiyaa ugu yara tusaale ugu yara waxaa la siiyaa nabadoon walba ama xildhibaan walba waxaa la siiyaa scholarship oo dibadaha ama dalka iyo igu faa'iideeyaan xageysigeeyaan waxaa jirta xildhibaan wuxuu xaq u leeyahay inuu dhahdo laftiis inay la xisaabtama asiga uu la xisaabtamo dowladda ugu soo bixiyo shaqooyin hal xildhibaana shaqo dhallinyaraha geeyey ma jira su-aasha mashtaada waa midaas raayada waa mahadsantihiin aad baan mahadsantihiin waxaa u baahana xisaabtanka inaan hoosan ka bilaabo nabadoon walba qof walba nabadoonkiisa waa yaqaanaa uu la fadhiisto barnaamijka noocaas iyo noocaas حتى واحد سؤال كونفور قبل تمشوا فاك الصعود وهي هلا دعوة وهي هلا تجري ما تجري بس الله غني حتى ببعضك الواحد لا برجع حتى ببعضك كونفور قبل تمشي ما قاعد تريد كيرتو حتى ببعضك إنه مش شقي إذا كان مش شقي كلام بالله توفيق وقتك هذا ما سيهاي وقتك يأرو سكوريا وحنا كلوا هاي إنه سيد ماذا khudbadahana waxay ku sii dhow yihiin inay sii dhammaadaan intaas aan ka gudubno cabaas cali nuur cali oo wax badan ka hadlay waxaan rajaynayaa dhibaatooyinka la soo jeedinayo oo dhan in
loo soo jeedinayo madaxda maanta aan dooranay inay naga saaraan ayaa ilaahay ka rajaynaynaa. qoladii laga badbaadisay dhibaatooyinka nagu soo socday inay ayaga noqdaan, gobolkan horseed u noqdaan. aan mar kale ka codsanayaa in waktiga la ilaaliyo, asxaabta loo yeerayo waktiga inay ilaaliyaan, dadka meel dheer u socdaan. odayaasha way dedegsan yihiin, midba meelaa laga keenay, shiradaa laga soo baajiyey, howlo badanaa laga soo baajiyey. marka qadiyadda digil markii la sheegay qof walba hooshiisa joojiyey, marka yaa la nacsiinin oo khudbad yaa loo dheeraynin. maxamed bare maxamed, fadlan waxaad haysataa 2 daqiiqo, kadibna guddoomiyaha da-da yaraan kusoo xiri doonaa. xalbadeena isku sii gudagali doonaa hadduu ilaahay naftaga nagu sugo. soo dhawo maxamed, waqtiga maaleelaan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. الحمد لله رايسكيتو الله إلهي سبحانه وتعالى ما نسكله. أنا بروح بدنا نقصو شقية وديك اللي بالفعل. واحد قصو كذا بيش ديك اللي قصو كذا بيش ديك اللي ما حنجي الله إن يخرج مرصو مر بالله عليه اسمه يسوع. فدي كانوا أقوياء نهاية الدوران معنا بلا يكفعنا قليل فين. قول شغلنا وصمت كباتوي بدنا يستان. dhibaatooyinka waa lagu soo hadlay odayaasha qaranka baa ka hadleen. dadkaas ay isleeyeen ilaahay wuxuu ku leeyahay laakiin adan isniiso bis ma rabo marka inuu gobolka shabeellaha soo difaaco oo dhalinyarta difaacan aqoon ha ka difaacan ama aqal ha ka difaacan ama awood ha ka difaacan. aniga marka waxaan jeclahay in gobolka shabeellaha soo hormariyo laga difaaco terroristi oo dadka baahiyaan dad isfiilaya waa argis wala soo waray maxkamada la geeyaa qodobka Soomaaliya teeban argis ay goobshada ku jira kaysay dad kana keenaysa marka goobshadaas waqti dhibaatooyin badan haysto oo xagge oo bislaad geli kuma jirto goobshadaas. دولة الصومالية أنا وهانا كم قبل ووجد أفكار أقوى إسبارتين يا دكتور ضد أقصى دولة تروح بقول كنت كيلومتر أو كمادين يا أو أي أطار ربنا الصومالي ما كم هنكر عصر بقلة هم دليشين ما كان جوب الشغلات وأوبانيا وإلى الدفاع. We must defend the country of the وإلى الدفاع كان جبناها وإن يدفعن بلايرد يدفعن سطر وبينه وإن السماء سي آري أوكا وقتين آري دبات دك مريف دبات بدنا صورتي دبات صوري الله أمر من واحد فرد معنا أو صبوا وين شكل برسبتي of the أي ناس of the مريف ما يبغى بهذا الجوك شغلوس وإن الدفاع بلايرد الدفاع هذا قصة أقصد دولة كدفاعنا أبودي كدفاعنا مسكانة كدفاعنا نقالين كدفاعنا أي الله باينا في الكريز هم ترى هذا أوكا بيبقى أوكا مركي تطو ما ببلاي ليس عم وحبك العين دتك هدي عم دتك مريف الأيام صغيرة نكا وتروح وأرجيس السكدية دولة الصومال نصاص سميريسها not justice كمجرد الصومالي وهذا وإن أندفعنا جول كين شبلاس إن الإنتكسون تشوف وإن إسكتفعنا I must defend the country of the league. هذه محمد سديسيين مدبر متكدرن dhibaatooyinkan aad u badan yihiin waxaan alla ka rajaynayaa dhibaatooyinkaas oo dhan inuu ilaahay naga saaro ilaahayna uu ku manaysto ka saarista dhibaatadaas golaha badbaadada koonfur galbeed oo dhalinyarta da-da iyana aan dooranay ee maskaxdooda firiishka ah aanan wax badan rajaynayna inay wax ka bedelaan. waxaan kusoo gebgabayn doonaa hal khudbad oo khudbadaasoo wiil codsaday 2 daqiiqo inuu ku soo koobo kana codsanayn 2 daqiiqo inuu ku soo koobo. soo dhow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو مقعي واجفتها وكرميو وحان كل شيء دقمي دقمي لقوة بشبيرها هوسي وحان مركو عباس أنا حسوسي وبريد كما ترسان أفقوي بريد وحي كتسنتها وادولي هوسي دقمي دقمي
marka labaad waxaan walaalahayga caawin ee wakiilada ka ah toddobada digil waa inaan baleynaa waxay sugaysa sida la sheegay shaqo fara badan caqabado fara badan oo idinka hor imaan doontaa caqabadaha marka waxaan rabaa oo aniga aan codsaday in halkaan soo istaago aadila wadaaga waxay tahay toddobadiina idinku socotaa sida ugu fudud ee lagu gaari karo miishanka halkaan ku yaalla waxay tahay in marka koowaad la mideeyo la isku keeno dhammaan salaadiinta iyo ugaasyada digil waxaan ognahay salaadiinta iyo ugaasyada digil inaysan midaysneen dhibaatada waa meeshii ka jirto kutubakaas ku sheegay barnaamijkaas marka la xaliyo inta kale waa la xalin karaa marka waxaan rabaa mudnaanta koowaad inaad siisaan sidii ay isugu keeni lahaydeen toddobada salaadiinta guud ee meesha digilna isku gaadhaan kadib ayagaa furan waa wax ayagaa meel kasto maxay ahayd loo jihin karaa waxaan nahay aqoon-yahano aqoonteedaan ku jihin karnaa dadkaas hadaa gacanta uu soo dhigo odayaashii nabadoonadiina weynaha fadhiya hadda taalagan marka ku dadaala dadkaas sidii loo mideyn lahaa intaasaan soo istaagay aadaan mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu midda kale nabadoon afhayeenka uu sheegay waxaa laydinka rabaa oo idan caqabadkeedu ku noqon doonto siyaasiga ama mas-uulka gaari gacanta saara aa laydinka rabaa inaad ka soo dejistaan gaarigaas ee aad soo saartaan gaariga halkaan lagu sameeyey aad iyo aad u mahadsan yahay xalfadii waan soo gebgabeyneynaa waxaan kusoo gebgabeyneynaa guddoomiyaha da'laya ama wakiilka gobolka shabeellada hoose ee u qaabilsan golaha badbaadada koonfur galbeed aan kusoo gebgabeyneynaa dhammaanteena waan baranaynaa magaciisa kama hordhacayo waxaan ka codsanaa marka hore inuu noo yimaado mikrofonka qabsado dadka isbaro annaka dhan aan baranno shaqooyinka horyaalana inuu wax noogu ifiyo soo dhawo mudan guddoomiye halkan waxaa ka salaamayaa sharafka cilmaawakiinka wararka haweenka dhalinyarada aqoon-yahanada saxaafada wararka duwan waxaan iyo ogolaaday inaan igu salaamo salaanta islaamka salaamullahi tacaala raxmatullahi wabarakaatu salaam kadib magacayga oo saddexan waa cabdisalaam ibraahim maxamed waxaan ku dhashay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada portuaali waxaa kusoo barbaaray magaalada buulamareer halkaas ayaa waxaa kusoo qaatay dugsiga hoose dhexe ee iskuulka alfaaruuq kadib waxaan kusoo wareegay xarunta gobolka shabeellada hoose ee makacdii halkaas ayaan waxaa kusoo qaatay dugsigii dhexe kadib waxaan kusoo wareegay caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho waxaan ku qaatay meeshii ugu dambeysay ee waxbarashada waxaan ka baxay jaamacadda soomaaliya faculty of humanity department public administration intaas kadib waxaa rabaa hadal yar inaan ka dhaho oo ku saabsan golaha southeast state sanitation council ama golaha badbaadada ee koonfur galbeed ee soomaaliya sida aad ogtihiin markii la dayacay gobolkii shabeellada hoose oo ay dayaceen siyaasiyiintii marka southeast state sanitation council waxay isku dayeen in ay badbaadiyaan dhibaatooyinka ka jiro gobolka shabeellada hoose iyo dhibaatooyinka oo ay haystaan shacabka shabeellada hoose ku nool shabeellada hoose degmooyinkoodii iyo gableeshoodii iyo warkoodii dhan waxaa nooga hadlay walaalkeeni kuma soo laabanayno waxaa halkan aad iyo aad uga hambaliyeyna mar labaad iyo mar saddexaad walaalahayga oo ila shaqay doonaan waxaa inoo horyaalla gobollo fara badan sida halkan ka muuqdo bishanka oo golaha badbaadada koonfur galbeed halkii ay wax ka arka lahaayeen bishanka waa ishii dhan mise aragtidooda fog hamigooda hiigsigooda fog waxaa weeye shacabka koonfur galbeed gaar ahaan shacabka ku nool shabeellada hoose maadaama aan matalayno in halkaas laga helo maamul wanaag good governance halkaas ay ka dhacaan isla xisaabtan dadkii ku nool shabeellada hoose qof walba qof alaal dhibaateynayo in ay la xisaabtamo shacabka shabeellada hoose ku nool in ay kaga qayb qaataan siyaasadda iyo xanaanka iyo dhaqaalaha iyo wax soo saarka ee koonfur galbeed participation oo halkaas oo ka dhaco shabeellada hoose dhibaatooyin badan ayaa haysto marka sida loo sheegay walaalkeena sheekh yuusuf cabdu buule dhibaato badan ayaa ka jirta halkaas dhibaatooyinkii ugu dambeysay waxaa ka jiray waaweyn
ودقمة كترسن كمان شباب البوسة ودقمة وقديمة يوتون بدن أحسن دقمة داسي وحاوسو تولد قوي وكريك ماضي دولة ده قال أهان أجل مسين قال أهان أو قبنا هذا كشوي مركب يبان كون سياسي بودو وحورعي وكيهي ويدقلنا تولي وحلقة سمينا markii ugu dambeysay oo idaacad ka dhageysanayo waxay ahayd xildhibaan ayuu dhahay degmadaha degmada Galbeed oo garanaysa oo xuquuq oo gaarsiinaya halkaas waxa qalad inuu qasku ugu hadlo marka si ay u tihiin tigil tooda ama tigil waxaa lagu hayaa awoodahoodii in la kala qaybiyey gooni in lagu qaybiyey dowlad in la dhahay idinku waxaa joogtiin baaqi ku qoraatiin tigil ma tihiin in la dhaho كتب يعني قرأ قولي إنه قالوا بقدر يسوي كله جيد يسوي كله وهكذا ما تقول دجال مكسيو كلية شنت علمه تقول كلام ويأمسيه تقول كلام وحنا كعصنا يا ما يخاص إني برجليا هدي أهلا هاي أخويا هندونا هندونا أنا أكون كذا إني أشوف هذا ما تحدي شنت علمه ودجال يسوي فيه وحاكو حبو كلية وأوتوماتيكلي شغلان يوجد أهم بريتوين وحابسي كده بيجي وعلى سعنايا وسعي في مدينة يمد عدا يمد مدوا سيدا أبسوق لكن تبصير هو سده بريتوين وحابسنا يكون ما تقولوا كاميرا شنو تعلموا بريو هي تجيسا جميل بريتوين هي تجيسا إنكرنيسا بيجي ويسي سعنايا الله يو ممكن تيجي الوطن هل أيلو كلا قناع marka waxaan idin go'ansanayaa in loo midoobo dhibaato badan ayaa ka jirto soo dhististiga Soomaaliya khaasatan loo shabeeyo afwan marka wadaadku waxay u jireen markii arrin xasaasi ah oo inay ka hadlaan asalaam alaykum kiisa iska deerno marka maanta ma joogno hotel oo dili ma joogno waxa aan ma tamaan waxna ugu haay maskaxdeen ka ugu haay maanta hadii aan joogi lahaa كرتواني مستويين مستويين أجولها هذا كان هذا كبر العاملة أنت أسكت وحارة عرفت بدنا هذا الدنيا عرفت بدنا جت سيد إيه كنا وديان حسين أبو بكر يوافق دكتور محمد عبد الله سيد إيه كنا وديان الدنيا أوجودين فها صوم محصلات وكلبوان وقتوي بدنا يجرين تحديد وين ماله صور كلا أود بدنا نسوينا يا الدنيا بس كل شيء جهود استغلاقك عن بروسس إيش كل شيء وتوي بدنا كذا مركا وحال مشيئة فيها الصور الروسية أيضا وتوي بس أيام كتاعي مركا هذه الدنيا وقتوي نلاقي وحي كان أيام مالين شباب الروسية حائرين هو dadka yirtada ah qoyskiyaasha ah oo dhibaatada dadka shacabka ku hayaan ay dhamaadaan maalmo insha Allah waayo wadilka ayaa mudawaa bin naas waa adduunyada waa sida dadka baa waxa aan weeyigsanay qofka wuxuu qaadanaa waqtigiisa odayaashii dhaqanka waan kala jimnayaa hadalada qaar oo halkan laga sheegay inuu wanaagsaneen inuu jilahan ay kuna qeexeen in wax laga sheegay waayo way u dhawr adeegeen dawladda u dambeysay soo state waxaa soo dhisay odayaal shariif xasan soo doorteen qaar ka mid ah odayaashii waxaa lagu dilay inta u dhexeyso inkarnaysa abgooye iyo beedow odayaal badan ay naftooda u horay marka ma ahan hadda in la dhaho odayaashii in wax laga sheego raal naqda afar quraanka hadiis quraan naqda marka odayaashii maadaama halkaas ay soo gaarsiiyeen marxaladda ay keeneen waxaa laga rabaa marka dhalinyarada aqoon-yahanada in meesha ay kasii wadaan geedka waxaa lagu abuuraa laba siyaabo oo kala duwan geed walba la abuuro laba siyaabo loo abuuraa waa mid inuu ahaado geed mirood oo meerdhal leh fruits in laga barto mise geed in la harsado odayaashan sharafta waa geedkii aniga maanta waa harsanayna aniga haddii odayaasha aysan joogi lahayn dhul shabeelada hoose aysan jiri lahayn odayaasha aysan joogi lahayn had laakiin waxay leedahay meel laga bilaabo aan ka bilaabo waxaa taaganaha shabeelada hoose waxaa iska shanta caleemood ha ahaato kamida waxay leeyihiin abguye iyo wixii sii dambeeyo qof walba degmadiisu sheegunaya oo degaya hadda meesha soo gaarsiiy odayaal soo gaarsiiy marka kaamida aqoon-yahanada waxaa laga doonayaa marka meesha inay sii wadaan sidoo kale waxaad ogtihiin wax walbo waxaa dhiso dhalinyaro sida aan ognahay 13 SYL waxaa hogaaminayay dhalinyaro
oo kasoo jeeda gobolka shabeellada hoose naftooda ay u hogeen dalkii waxay gaarsiiyeen in soomaaliya ay ka xoreeyaan cadowgii talyaaniga iyo gumaystaha ahaa 13 dhalinyaro hadda meel dhalinyaro halkan ku dhinac yaa noo sheegi karo waxaan doonaynaa marka shabeellada hoose inteenaan aqoon-yahan ah in aan ku laabano gobolkii aan midayno aan badbaadino dhibaatooyinka ka jiro dhanka environmentiga ama bii'ada dhibaatooyinka oo ku jiro dhanka dhaqaalaha dhibaatooyinka ku jiro dhanka arrimaha bulshada iskuulkiiya waxbarashadii caafimaadkii dhibaatooyin badan ayaa haysto gobolkeeni waa la dayacay siyaasiyiin badan ayaa dayacay aqoon-yahan fara badan ayaa waxaa rabaa hanti inay u kacaan gobolkaas ay badbaadiyaan ayaa la doonaya marka sida aad ogtihiin dhaqaaliyahankii aad u weynaa oo John Maynard Keynes la lehi jiray wuxuu keenay aragti iyadoo adduunyadan ay ku shaqeyso hal aragti oo dhaqaalaha oo businesska iyo ganacsiga weydka iyo global finance ay ku shaqeeyaan nuclear economy ayuu wuxuu keenay mid ah aragtaas oo weyn oo macro economy dhaqaaliga lagu weyneeyey kadib hadda waxaa ku shaqeeya halkaas aragti oo halka keenay waa un shaqsi oo keenay oo professor ah waxaa ku shaqeeyaan dowlado oo dhan ayaa ku shaqeeyaan macro economy dhaqaalahaas oo ah dakhliga dowladda uu soo gal lahaa expenditureka ay bixiyeen revenue taxation cashuuraha ay qaadeen dhan ay ka mid tahay waa hal shaqsi yaa keenay marka aniga waxaana aqoon-yahan waxaan la bariyo odayaashii dhaqankii oo halkan oo yacni naftooda usoo horeeyay hadda koor haddana diyaar ay u yihiin inay taageeraan ee diyaar ay u yihiin marka in meeshii aan kasii wadno aan isku dayno haddii hal shaqsi adduunka soo hormariya aniga inteena dhan shabeellada soo hormari karnaa waxaan u malaynayaa waqtigan inuu aad ugu yaryahay marka gacmahooda intay wax ku gooyaan iswaarsano gacmaha isqabsano shabeellada hoose anaga maahane cid kale maanta kama jirto marka sacrifice aan samaynaysa walaalayn markay nagu sheegeen nafteena awoodno sida aan u horumarin lahayn gobolkeena dadkeena sidii nagu sheegay labadeena walaalo ah oo ay ka dhawaajiyeen maxamed cabdullaahi iyo xuseen abuubakar waxay ka dhawaajiyeen laba arrin aad u kala duwan oo xasaasi ah mid wuxuu ka sheegay dhanka populationka ayuu ka sheegay mid wuxuu ka sheegay dhanka dhaqaalaha labadooda haddii isku jiro waxyaab badan ayaa soo baxay sidaan ognahay maraykan iyo ingiriiska iyo asian qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu badan iyo waxay kasoo galaan gobolada oo ugu tiro badan dad ahaan gobolkan waxaa lagu keliyaa dadka haddii ay badan yihiin taxi bayga yihiin canshuuraad in bixiyaan haa way bixiyaan revenue badan dad walba meesha kusoo galaa haa wuu kusoo galaa dowladda marka dadkaas ay waxay siinayaan marka ihtimaam aad u badan xildhibaanada oo ugu badan oo matalaayo oo dowladdaas waxay kasoo galayaan gobolkaas marka infaaliya iyo hadiyo badan ayaa noo muuqdo oo ka jiro soo kasta qaasatan gobolka shabeellada hoose maadaama aniga halkan oo kuma tirin gobolka shabeellada hoose arrintaas waxaa waaye in aan ka dhagayno marnaba waa in aan isdiibin marka sidoo kale waxaa aad iyo aad aan halkan ugu mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka culimaaadiinka martisharafka ururka habeenka dhalinyarada aqoon-yahanada iyo badan meediyaha saxaafadda si wanaagsan maanta oo dhan saaka ilaa hadda oo waqtiga ay dad badan soo gaajiyey marka ayaga waxaa leeyahay kun iyo koofi waa mahadsantihiin gacmahooda jirbay wax ku gooyaan gacmaha asqabsano asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waxaan gudageli doonaa hadduu ilaahay gaarsiiyo caleemisaarka yaraa aan ugu talagalno inuu matalo guddoomiyaha dhammaan dadka meesha taagan waxaan gudageli doonaa inaan caleemo saarano guddoomiyihiina da-da yar wakiilka nagu ah gobolka shabeellada hoose golaha badbaadada waxaan ka codsanaa doctor maxamed cabdulaahi buule iyo xuseen iyo cabdiqani iyo luul waxaan ka codsanaynaa inay noo caleemo saaraan guddoomiyaheena si hooshiisa laga bilaabo maanta ay ugu bilaabato dhiirigelinna ee u noqoto si hooshaas ugu istaagi lahaa waxaan ka codsanayaa inayna soo gaaraan luul maxamed iyo xuseen iyo cabdiqani waxaan ka hormaraa microfonka si dardaaran yar loogu jeeday guddoomiyaha ditoorka ayaan ku horeynayaa maasha allah aadaan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol markii labaad aan soo istaaga ayay noqonaysaa cabdisalaam cabdisalaam ibraahim maxamed hambalyo si sharaf leh oo qiimo leh ayaa maanta waxaan u rajaynaynaa insha allah inuu naga gudoomi doono horyooga ama wakiilka noo qaabilsan dhanka south west salvation council lower shabeelle
waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ilaahay kula garab gali doono howsha adag ee lagu dhibay adiga iyo tiimkaaga dhammaan xubnaha wakiilada kula qaabilsan gobolka shabeelle hoose ee noo matali doona waxa loo yaqaano south west salvation council ama golaha badbaadada koonfur galbeed ee soomaaliya uu gudoomiyaha guud uu ka yahay professor doctor cabdulqaadir sheekh daalib oo ah nin wax badan u taagan horumarinta bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeelle hoose uu awood u noo siiyin aan maanta gacmaheena ama caqligeena iyo maskaxdeenaba aan ku dhisano dhalinyarada horteena taagan horteena ka muuqata oo wajiyaashooduna ay ka muuqato wajiyaal dhiirigelin iyo farxad maanta caleemisaari doonaa taariikhdu ay marayso bisha 11/11/2018 maalin khamiis ah waa maalin taariikh mudan in la xuso dhammaan golaha badbaadada koonfur galbeed ee shabeellada hoose wajiyaasha ujeedaan kolley wada dareensan tihiin waa raggii matali lahaa waxaa garabkayga taagan cabdiqani oo aan ku wareejin doono microfonka oo wakiil noogu noqon doono inuu maanta naga gudoomo in uu xilkan maanta loo dhigo cabdisalaam waa caleemisaarka aan garabkiisa taagannahay uu maanta u caleemisaaro isaga iyo luul sidoo kale maasha allah aad ugu faraxsanaa waa laga soo dhaweynaa gudaha u gali doonaa caleemisaarka cabdiqani welcome bismillah kuma dheeran doono maadaama waqtigeena hayo cabdisalaam waxaan leenahay inaan u dardaarano oo asna ilaahay inuu la garab garo aan u duceyno tan kale caleemisaarkiisna maanta waa maalin taariikhiya aan xusno waxaan leeyahay cabdisalaam ilaahay ha kula garab garo xilkan adna dulqaaddeedii aada muujisid oo dadaaldeedii dadka inaad isku xirtid oo arrimaha danta iyo dalka inaad ka shaqaysid marka culeysaa ku saaran culeyskana waxaan dhihi lahaa inaad dadka oo aada matali lahayd aad la shaargelisid ilaahay kula garab garo ambalyo waana soo dhaweynaa insha allah mar labaad ambalyo cabdisalaam ilaahay ku garab galo maanta waa maalinta oo reer shabeelle hoose oo dalku u taarmay marka hambalyaan leenahay cabdisalaam iyo dhalinyarada kale السلام عليكم أصلا ما هو ما توفى جد أصلا وحنا هلا وكيل وكنتنا كهذا دونا ومرتنا كنتنا كهذا دونا وحنا ومرت واديكم ديجان واديكم إيه واديكم وفضل بدو واديكم ما أنت معلق التحضن تاني جت مبلغ ما أنت معلق على مسار cabdisalaam ibraahim maxamed macallin ka fadli badanta ma jirto cabdisalaam oo shaqaa lagu inbaday shaqada lagu wataalo waa shaqo adag waxaan dareemi doonaa in lagaa hormaan doono in aada guurka qaadi doonto qofka kaa horimaado farax bikos qofka hadduu ka horimaan lahaa waa xanaaqinayd bikos laakiin qofka halkaa markuu ka horimaado geedgelin ka qaad wada shaqayn wacan waxaan isleeyahay hadalkii abadin maanta o dhan ala hadlaayay cabdisalaam oo shaqo badan ku taalo shaqadaadayda insha allah waana garabkaagana haddii ilaahay gaarsiiyo intaasaan kusoo koobi lahaa asalaamu calaykum caleemisaarka hal eray oo aan soo xasuustay ayaan raaciyaa cabdisalaam waxaan ku leeyahay waxaa isticmaali doontaa hadduu ilaahay waa iga talo waxa loo yaqaano ghazul fikr ghazul fikr macnaheedu waa professorka soo hore u sheegay education assistance waa inaad ku dabaqdaa dagaalkaaga koowaad inuu ahaado heer aqooneed waan ognahay heerka ka gaarsiisantaha aqoonta waa meel maanta aan ku taamayna anaga dhan aan ku faraxsannahay waxaan gudaha u galaynaa caleemisaarka waxaan rajaynaynaa insha allah in aan sida caadi ahaan soomaalida markay saarayso waxaa jira dhaqan la isticmaalo marka waxaan rajaynaynaa insha allah qaabkii loo samayn jiray cabdiqani iyo luul iyo xuseen maasha allah naga guddoonsiiya master cabdisalaam ibraahim aan caleemisaarka hore u galo waa maalin farxadeed waa maalin taariikh mudan in la sameeyo kolley waxaan soo dhaweynaynaa cabdisalaam noo soo dhawaa dooraadaya waxaan rajaynaynaa insha allah inaa calanka iyo dalkaba aan u shaqeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
Ooh,